سلام كدب waxaan ka warbixinayaa maadaama aan ahay gudoomiyihii beesha garaad Cabdullaahi Jaamac Xiseen magacayga la yiraahdo hadda sanadkii 2011 ilaa hadda oo sanadkii 2012 u bilowday wixii deegaankan laga qabtay baan rabaa inaan ka warbixiyo horta deegaankan sida adduunkuba laga warqabo waxaa lagu lambariyay inuu yahay meel maaragta burcadbadeed ay ku deegaanka dhigatay arintaa annagu markii laga soo bilaabo bishii saddexaad 2011 iyo muddo hadda shirweynihii 22 la qabtay inta u dhaxaysay waxaanu wadnay shirar iyo isu aruurin in la isku afgarto in laga guuro arintaa adduunka la gashay oo ah burcadbadeeda arintaa baanu wadnay alxamdulillah waa ku guulaysan arintaa waa laga sifeeyay deegaankan arrimaha ayada oo si walba looga sifeeyay waxaynu qabanay ciidan abni yaanu samaynay si aanu isaga difaacno cid kasta oo arrimihii aynu go'aanka ka qaadanay nagu soo wada ama ka wada deegaanka dhexdiisa arrintaas yaa ugu muhiimsan waxyaalaha hadda aynu qabanay samanada tan carrada dhib ku ahayd arrintaa waynu ku guulaysanay waa laga sifeeyay arrintaa waxaana sabab u ah hadda bishii ugu dambeysay hadda toddobaadkii labaad oo hadda midkaan ku jira xigay waxa la inoo sheegay inuu nagu soo socdo markab talyaanigu leeyahay oo la soo afduubay waxaanu samaynay arrintaa waa ka hortagnay waxaanu ka horgeynay hadal aan ogeysiinayno inaanaan ogolayn arrintaa ayaan dib dambana uga dhici doonin deegaanka kan xeebta degmada Jariiban ciidamadii amnigana waa howlgelinay waxay ugu tagan ciidamada amnigu markii ay dib u cesheen meel la yiraahdo buuq oo ka tirsan biyaha degmada ay halkaa marba isku dhici gaareen ciidanka amniga iyo niman biriga u joogay markabka ilaa qadartiis waxa arintaa dhex galay odayaal meesha joogay waxay baajiyeen iska horimaadkii ka bacdina waxay aad maaragta ugu adkeeyeen inay meesha soo dhaafin arrintaasi sidaas bay ku xirantay intii ka dambeysana waxaanu sameeynaynay kormeer joogta ah oo ciidamada amniga waxa garadka deegaanka ay iska kaashadeen oo lagu sameynayo dhammaan xeebta degmada Jariiban oo dhererkeedu yahay 165 waxay ku sameeyeen ilaa wax badan oo kormeer ah si ay u ilaaliyaan in arrimihii la go'aansaday ay ku soo gabadaan meelaha cidlooyinka arrintaa wali ma aanan arag wax sidii go'aanka loo qaatay nagu soo noqda waxaan aan rajaynaynaa haddii alla idmo in arrintaasi sidii go'aanka looga qaatay aanu una hawl galay inay sidaas ku dhamaato wabillahi tawfiiq xafladatan aan isugu nimid odayaasha iyo saxaafadda iyo dhammaan waxgaradkii deegaanka Garaad waxaan ka soo jeedinaynaa guulihii ama waxyaalihii waqtiga yar laga gaaray markii hadda deegaanku gaaray go'aamada in laga sifeeyo waxyaalihii dadku dhibsanayay oo ay u horeeyeen magaca aad u baxay oo ah burcadbadeednimada waxaana laga gaaray guul aad u wanaagsan waxaa joogsaday oo la joojiyey oo ku qoran xeerkaas inaan laga duuli karin laguna soo xiri karin wax la soo afduubtay maraakiibta adduunka ka gooshaysa degmada Jariiban badeeda Garaad ilaa xuduudda ay la leedahay degmooyinka kale oo ku saabsanay ilaa 165 kilomitir waa lagu guuleystay arrintaas hadda waa hirgashay muddadii yarayd oo hadda ay shaqadu socotay in dhammaan xeebta laga soo qaado wax allaale wixii burcadbadeeda loogu adeegsan jiray oo kamid ahaayeen jaranjarooyinka motorada
lagana xereeyo cid allaalay ciddii lagu tuhmay qalabkaas iyadana waa lagu guulaystay waxyaalaha falkaas iyo howlgalka ka fulay bay ka mid tahay waxaa kaloo iyadana shaqooyin badan laga qabtay dad badan oo lagu tuhmay run ahaantii waa tuhumo inay qalqaalo ku jireen inay dhoofitaan ama duulaan ay meelo kale u aadaan oo iyagana la xirxiray ayaa jiray oo iyaguna tuhumadaas kaliya loo xiray aan markii fal degdeg ah oo lagu qotay ay ku jiray ayan jirin laakiin loo xiray waxyaalaha arrimahaas oo dhan marka saameynaya waxay ahayd deegaanka dadkii ku noolaa oo bulshada dhalinyaradoodii ay awal ku kacahayeen waxaad arkaysaan in maanta goob kastoo aad tagtid oo xeeb tahay inay safaysan tahay in xasillooni ka jidho ciidan baa la abuuray ciidankaas abuuraa wuxuu ku guulaystay inaan maanta magaalooyinka waaweyn waxaan laga heli karin halkan laga helo oo aan xabadi ka dhacayn oo aan qoryo lagu dhex marin magaalada dhexdeeda oo ayan ka jirin waxyaalaha maaragtay aada iyo aad u maasheeyey deegaanada magaalooyinka waaweyn ee hadda gobollada tarnaandiriska oo aynu puntland ku abtirsano baad dareemaysaa inaad ka arkaysid dhalinyaradaas marka waxay u baahan tahay inay helaaniin waxyaale awn meheradoodii iyo shaqooyinkoodii loogu bedelo oo maxay tahay haddee waa dad shaqaysan jiray waagii hore waxaa soo dhex galay waxyaalo badan oo hadda ka ersheegtaan baa jidhay hadda ka hor hadda waxay u baahan yihiin marka inay ila dhaqaale iyo shaqo loo abuuro oo adduun weynuhu dadkii haddii wax laga bedelo oo dadkii waxay ku leeyihiin in la jiheeyay u baahan yihiin in la jiheeyo ayay u baahan yihiin hadda ka hor maraan la shiray qolo dhalinyaradaas oo ololayaashaan hadda go-aamadaatan dambe intayn soo bixin aan la shiray oo aan marar badan aan iri war waxaa ina dhibahaya ka hadla laakiin ka hara burcadbeedanimada qodobo dhowrahoo shuruuda ku xiraa ayaa jiray oo ay yidhaahdeen shuruudahaas haddiina loo qabto waan ka joogsanaynaa iyada laftigeeda waxaan aada iyo aada ula raadinayay saxaafadda inaan u bandhigo maadaama ay ahaayeen dadkaasu dad dhalinyaradaas u badnaa waxyaalihii ay markaa tabanayeen kow waxay ballan qaadeen waxaan joojinaynaa bayaan shaqada burcadda markii la helo waxyaalaha soo socda kow maxaabiista nooga xiran dibadda in naloo soo daayo oo deegaamadaatan laga xiray labo in shiriiflayaasha laga saaro badda soomaaliya oo sunta ku daadinaya qaarna kalluunkii iyo dhagaxii iyo waxyaalahan ka adeegan jiray iyo shamaagaha iyaga baabi'iyey saddex in kuwa hadda la haysto waa shiriiflayaal u badan aanu ganaaxi ka helo waa markaa shuruudaha saas ku xireeyeen moogta in shiriiflayaashaas aanu badayada ka qabanay iyagoo shariifaya aanu ganaaxi ka helo mid dambana aana la soo qaban inaanu taageero ay helaanin kalluumaysatadu taasoo sahlaysa inay joogsato qabsashada maraakiibta adduunka u kala goosaysa qodobada afarta ah hadda ka hor weeye shuruudo ay yani iisoo gudbiyeen oo aan rabay inaan saxaafadda usoo gudbiyo anigoo iyaga in badan ka waaninahayay ama kala hadli jiray inay arrintaas ka joogsadaaniin waxaan aada iyo aad u danaynahayay marka in dhalinyaradu u baahan tahay in loo soo celiyo qalabkii adeegii baddii oo nadiifa oo ay ka kalluumaystaan wixii kaloo loo heli karo oo taakuleyna inay aada u raadinayaan in waxyaalaha kaloo ay tabanayaanna ay ka mid tahay in hawlahaas ay ballan qaadayaan inay joojinayaan shuruudahaas haddii loo helo hadda ka hor baa taasna aanu ka wada hadalnay haddana waxyaalihii ka fulay iyo sida shaqadii u socoto idinkaa indhihiina ku arkayo oo madaxda deegaanka iyo ciidanka oo aad la kulmi doontaan iyo inta aad ka arki doontaan intaasaan jecelahay inaan haddii aad u baahan tahay wax su-aala ay weydiinta kale oo la xidhiidha laakiin intaasaan jecelahay inaan idin soo gudbiyo anuu xogta aan ka hayo horeysa waxaan waa u mahad celinayaa saxaafadda waayo hawsha aanu gallay saxaafaddu inay gudbiso waxay noo tahay annaga qayb weyn oo aan u baahannahay waa mahad celinaynaa midda labaad arrinta halkaan annagu aanu gallay waxa weeye arrinta burcadbadeeda la dagaalanka burcadbadeeda weeye arrintaasi marka waxaan rabaa inaan caddeeyo dhowr qodob kow horta waxa weeye arrintan waxaan u gallay isku day dhowr goor oo hore 4 goor oo horaan isku daygaan samaynay markaana markii shanaad weeye waxaanan isleeyahay waa marka idinku faa'iido badan aan u kalsoonida iyaduna aad ay u badan tahay waxaana weeye waanu ku guulaysanay kan oo wax qabad baa ka soo baxay
waxqabadkaas inuu waaraan rajaynayna kuwii hore waxqabad baa ka soo bixi jiray laakiin xilli yar buu ku burburi jiray marka aan idiin caddeeyo waxaa annagana dhiiri geliyey oo nagu soo kordhay arrintan la dagaalanka burcadbadeeda waxa weeye raggii dhallinyarada ahaa oo burcadbadeeda ku jiray oo wacyigelintii iyo hanuunintii iyo wadahadalkii aanu la lahayn muddo dheer raggaas oo qaatay soo jabay annaga raggaasaana dhiirigeliyey hawshaan doorka u weyn cidda qaadatana iyaga weyn cidna gacanna siisay oo aan ayaga ahayn ma jirto walaa dawladda puntland walaa federaal walaa hay-ad walaa ajnabi midna gacan ayna siiyeen ma jirto waxaa gacantana siiyey waxay ahaayeen nimankaa dhallinyarada ah howlgalkaana hadda wuxuu ku bilowdayna waxay la tahay saxaafaddu waa ka dheragsan tahay oo waxa weeye baahi timid dhibaato dhacday arrimo aan rabno in maaragtay hadda aanan halkaan kusoo koobi karin laakiin cid kastaa dareensan tahay arrintaas baa deegaanku wuxuu jeclaystay inay joogsato waanan joojinay waan ku guulaysanay wax nala qabtay oo hadda gacanta ku hayaana waxa weeye nimankaa dhallinyarada iyo deegaankii wacyigelinta waday wada shaqaynaya taa waa intaas waxaan caddaynaynaa inaan ku guulaysanay oo maanta garacad markab ku xiran uusan jirin ee maraakiibtii laga faaruqiyey lana go'aamiyey inaan lagana hawlgelin markabna la keenin oo lagu soo xirin 160 kilomitir hawshaa waxaa fulinahayaana ay tahay cidda koobaad dhallinyaradii burcadbadeeda ka soo xirootay oo wacyigelintii iyo wadatashigai deegaanka u hoggaansantay intaa kadib waxaan u baaqahayaa puntland federaalka hay-adaha ciidamadan ilaalinta la yidhaahdo badda jooga waxaan ugu baaqahayaa arrintaas la dagaalanka burcadbadeeda ama joojinta burcadbadeeda mid kasta ha loogu magac daro in arrintaas aanu ku guulaysanay waxna laga qabtay laakiin ay u baahan tahay jiritaankeedii siday u jiri lahayd oo u shaqayn lahayd oo u waari lahayd waxaa laga rabaa waxa weeye annagu doorkayagii waa qaadanay dhallinyaradu doorkeedii waa qaadatay dhammaystirkeedii iyo hirgelinteedii waxaa laga rabaa federaalka puntland dawladaha hay-adaha caalamiga ahaa laga rabaa waxaan u soo jeedinayaa oo hadalkayga ku gabagabaynhayaa intiinaas inaad door ka qaadataan baa la rabaa oo aad gacan ka geysataan oo dhallinyarada la jaheeyo oo shaqo abuur loo sameeyo oo la maalgeliyo oo wacyigelintii la sii wado annaga hadda deegaankaa diyaar baan u nahay waanan wadaynaa laakiin hadday burburto xalku wuxuu saaran yahay eeddu waxay saaran tahay waa puntland iyo federaalka iyo hay-ada caalamiga ahay saaran tahay intaasna baaq baan usoo jeedinaynaa adduunkana waxaanu caddaynaynaa garacda inay maanta nadiifna tahay nabadna tahay dadka shaqaynayaana ay inaan ka soo qayb galo shirkan oo aan arkay garacad xilligaan ii xigay wixii aan ku arkay iyo waxaan markaan kula kulmay ay u dhaxayso farqi weyn anigu marra waxaan ahay nin kalluumaysata oo ka shaqaysta deegaanka garacad marra waxaan ahay isuduwaha kalluumaysiga gobolka mudug si khaas ah bay ii taabanaysay waxyaabihii jiray ama shaqadaydii oo ku taagnayd ama tii deegaan oo taagnayd ama waxyaabihii magac ahaan magaalada garacad lagu aqoon jiray oo ahaa magaalo nabdeed oo ahaa magaalo horumar oo ahaa magaalo caalamka la yidhaahdo waxay qabsatay siday dhirta u ilaalisay siday ugaarta u ilaalisay siday badda u ilaalisay xaalufkeeda siday u ilaalisay jariifka ula dagaalantay meeshii koowaad waxaad garataan meeshii koowaad oo maxkamad lagu saaray marka jariif ah oo badda jariifahaya oo jajabinahaya oo dhagaxaantii kolor riifka ahaa iyo kalluunkii guranahaya meeshii koowaad oo maxkamad lagu saaray rasmi ah bay ahayd oo lagu soo qabtay 1998 waxa weeye meeshaasi meesha horumarka noocaas ah waxay ahayd meeshii lagaga dayday ugaarta sida deerada sagaarada inta duusha iyo inta raadka ku socotaba in la ilaaliyo waxay ahayd meeshii laga soo saaray in badda laga ilaaliyo aragoostada in laga sameeyo xirmo badeed ay ku kordho aragoostadu waxay ahayd meeshii laga soo saaray go-aankeeda in aragoostada ka yar
270 garaame oo hoolka inaan la qabsan karin meelihii horumarka noocaas waxay ahayd nabadgelyada meesha hay-aduhu markii ay soo maraan dalka ay inay seexdaan ay isku day jireen oran jireen ayadaan seexanayna ammaan ku naqaan meeshii sidaas ahay waxaana jirta mahantii meeshaan markii aan ciidamada abaabulay aad baa waxa uga jira dhibaato iyo burbur xun qamri haday tahay xabad haday tahay dhaqan xumo kasta oo jirta waa ka jira iyo burcad mahantii haddana maanta waxa la oran karaa waa magaalooyinka magaalada uga amni roon baa la oran karaa ama uga ammaan badan waana aragteen inta badan maanta dad soconayso qof qorista iyo wax bad oo ka dhacaya iyo wax dhibaato oo ka jira ma jiraan aad baa ammaankeedu suweyn sidaas oo ay tahay haddar maanta waxa la oran karaa aad bay ku dayasho weyn u leedahay maalinta horena sida ay ahayd yaa qof kasta uu arkay meel aad dhibaataysan dhibaato badan ay haysanay haddar dadaan soo qabanay burcadaan soo qabanay waan khamri ku qabanay intuba waxay noogu jiraan in saldhigyada jeelal waaweyn aan u gudbinaa annagoo aan haysan annagoo aan gaadidan ku qaadnay dhaqaale midna lahayn waxaan dareemayaa hadda inay kalifi doonto mar dhow inaan iska sii dayno because awood ba waayno naga awood badanayaan cid aan la xiriirana Puntland baa inuu kugu sokayso ma jirto xiriir ayna leedahay wax dhaqaala wax gaadiida wax xabsiya midna nagama caawin federaalna nagama caawin dawladda kale adduunka ajnabiga ahna nagama caawin waxaan u sheegaynaa in ay dhibtii iyo burburkii iyo dhibaatada aad inay ugu soo noqoto inay halis u tahay haddii aan si degdeg ah meel kaga qaban waxaan la kaga soo gaarin haddana aad baa fiican tahay waan arki doontaan ammaankeeduna 99% haddar waa fiican yahay iyo wax ka qabadkeed dadka aan haynana awood bay nooga awood badanayaan iyo kuwa soo socda haddii aan waxna la kala qaban waan soo tusi doonaa saldhigii iyo meelihii kale aan wax ku haynay iyo kontaroolada iyo kulli barahaas oo dhan waan tusnay iyo xeebtii amnigeedu aad u sugan yahay sharafteeduna way fiican tahay ummadda karaamadeeduna way fiican tahay 165 kiiloomitir degan laakiin aad bay ugu soo noqon doontaa dhibaatadii haddii aan wax laga qaban oo Puntland federaal dawladda inta badan